السلام عليكم أصحابي waxaan filayaa maanta inaan muuqaal kale iyo akhbaarad kale idin soo ururiyay aan halkan ku wada falanqeyn doono. Waxaan idin hayaa maanta xogo aad u waaweyn balse adinkana muuqaalka inaga dhisay laagta saara haddii aad naga mid aheenna qofka ay daawanayo channelka subscribe dhaho gabraalkan fursay ku soo gaareen muuqaaladaan soo dhigayno. Aan ugu dagalna muuqaalkeena maanta. Asxaabi isbuucan waxaa baaqday taxanaha tashajaag buudinaysa ama jacayl qoto dheer waxaana ka baaqday dhanka Turkiga sababa jira awgeeda taasi oo daawadayaasha ku dhalisay walaac iyo fikir aad u weyn waxayna u maleynayaan taxanaha in la soo gabagabay doono oo final yeela doono taas ayaana la isla dhaxmarayaa waqtigan balse waxaa la sheegay sababta ugu weyn oo u baaqday tiim tashajaag buudinaysa intaana muuqaalkan guda galin laagta saarhay maalmihii ugu dambeeyay magaalooyinka Sharli Urfa iyo Kahramaan waxaa ka dhacay weerar kuwaas oo lagu qaaday iskuulada taas oo sabab u noqotay in taxanooyin qaar la joojiyo yani isbuuc la baajiyo taxanahan wuxuu ka mid noqday sigana taxanayaasha la baajinayo isbuuca kooxda taxanaha ayaana sheegtay taxanahan uusan dhammaan balse saameyn ku yeelatay xaaladda jirta iyo dhanka dhaqaalahaba marka taas sidaas awgeedna ay u baaqatay xalqada isbuucaani laakiin isbuuc dambe oo sii jiri doono sidiisan u socdoono taageerayaashiisana sidiisa u sii qanci doona taxanaha insha Allah asxaabi waxaan wadi doonaa inaan idin la soo wadaago xogaha taxanahan ka cusub tiimkii taxanaha taageeranayana waxaan rajeynayaa in muuqaalkaani ay wax ka bixi doonaan marka inuu sii gudagalno marka kuwa kale xogtan waa mid ka duwan inaad taxana ka sheego laakiin waxaa hadda lagu dhigan yahay maalmahan isbuucyada la soo dhaafayay warbaahinta dhanka Turkiga heestay iyo Israa'iilba jilaaga lagu magacaabo Korkem Sefindik magaciisa inkastoo adag yahay waxa uu bedelaynaa Qadiir ama Baba Qadiir kaas oo ka sheegay arinta ka taagan Falastiin walaalaheena kuwaas oo ay ka dhigeen mise soo saareen xukun ah halkii qof ee Falastiin ah haddii uu gumaystaha qof ka mid ah uu dilo in asiga la dili doono halka gumaystaha qof ka mid ah haddii uu dilo qof ka mid ah Falastiin laakiin asiga aan la dili doonin markaa kuwa xabsiyada ku jirana dhamaantood hadda dil lagu wada xukumayo taas ayuu ka hadlay waxa uu sheegay in midaasi aysan ahayn bini'aadanimo weliba xadkeeda ay dhaaftay waxaana in laga qabto u baahan tahay waxyaabo noocaas oo kalena aysan macquul noqonaynin markuu sidaas dhahay waxaa weerar kaga imaaday wasiirka arrimaha dibadda miyaamse gudaha ee Israa'iil Ben Gvir kaas oo isla markii dhaliilo iyo erayo aan haboonin u adeegsaday aktarka Ben Gvir waxa xanaajina wuxuu ahaa hadalka u adeegsaday Baba Qadiir kaas oo ahay haddii aan maanta muujikar bini'aadanimadana gormay muujinayna ma aha inaan midaan ka aamusno wuxuuna sheegay in laga hadlo in sharcigan aan la ansixinin oo laga soo horjeesto isla sharcigan waxa ansixiyay Ben Gvir waa sababta ugu soo horjeedana dadka qaar way ka soo horjeesteen waa fahmi kartaa kuwaas ka soo horjeesanay dadka qaarna waa ay taageereen oo kaliya noo hadal bay ahayd dadka qaar waxa jiro markii hadashay isla markii ayagana hadalkaasi asxaanta ku dhahayo oo iga soo daftay macna dadka qaarna waxay dhaaheen kaliya waxa uu soo nooleynaya taxanooyinka oo ku jiro sida midka Ashraf Riyaa marka والله لا أعلم قفل به قلبي يسوي حكوا جرا الله أوك موضوعنا هالكس أين وجود بينا ولا لهنا على قرب كود هقلو إن شاء الله وحرجينا ني حروب دونان حروب دونان قاعدة دونان هالقف أو أيضا نقوم يستحكم إذا مشوا أو سقوا هردوني إن شاء الله كل ودع دون تاهي وانسوينا نانك كل واحد جرم السلع سب كاسو كسب بحيد نانك TRT1 أو لقد داونا يعني وحلق داونا تابي لقد داونا وحنس كل TRT1 أو شركة الله ذا كمدة مراد الدريم أيا جلايو وحا ونك كوبين يتحنها 6 حلقات شركة السنة وشركة dhab ah taas oo dhacday qarnigii la soo dhaafay 1939 waxa ku saabsan tahay sheekadiisa dhulgariir ka dhacay dhanka Turkiga qarnigaasi mise sanadkaasi 1939 sheekadana waxay diiradda saaraysaa xeer ilaaliye adehe oo lagu magacaabo Yuusuf kaasoo sameeyay maxaabiistii ka soo fasaxay maalintaas ay dhibaatada dhacday si ay dadka u samata bixiyaan dadka ku jiray dhulgariirka dhacay hoostooda iyo sariir dumi dhibaatooyinka dhacday dad si ay u caawiyaan dadka ay wax uga soo bixiyay xabsiyada taas oo noqotay taariikh aan weligeed Turkiga aysan ila weynin baaldahabna ka gasha haddana waxaa jili doona aktar aad dhanka Turkiga caan ugu ahay kaas oo Muraad al-Dream lagu magacaabo dad badan oo hadda aniga daawanaya waxaa filayaa inay yaqaanaan aktarkan waxa uu jili doona doorka xeer ilaaliyaha lagu magacaabo Yuusuf inkastoo hadda uu wada taxana kaasna waxa uu sameeyay taxanaan intuu bilaabin ka hor waxa rajaynayaa in TV-yaasha wax tarjumay inuu soo tarjumi doonaan xalqa kasta waxay ka kooban tahay 40 ilaa iyo 40 daqiiqo la ay konton laga yaabin gaaran 30 waa laga yaabin gaaran oo iska kooban yahay hal mar u fadhiisan marka dhaxbax weey dhanka kale waxa jira musalka shiraaka la dhahay kaas oo soo baxay seasonkiisa horena af Soomaali loogu daawaday hadda waxa la shaaciyay inuu yeelo doono season 2 waxa hogaaminaya ninka ku jira magaalada fog cidii taqaana ninka magaalada fog qofka daawatana way fahmi kartaa ninka hogaaminaya waxay u muuqan doontaa inuu soo bixi doono 2027 ama inuu kasii fogaa doono 2028 ay doono ama uba sanadkan horta macquul galma in 2026 uu soo baxo balse 27 iyo 28 labadaas mid iska dhaxa xogaa ugu muhiimsan ka Turkiga ka soo baxay sidoo kale waxay ahaayeen waxa la xireen kii lagu magacaabay Burak Deniz kaas oo gurigiisa laga helay qadar yar oo darooga ah Turkidana way u dhigatay aktaryaasha oo
bilooyinkii lasoo dhaafayay dhan waxaa la aruurinayay dhowr aktar oo lagu qabtay daroogo. Sidoo kale waxaa la sheegayaa in Barish kaasoo caan ku noqday musalsalka wuxuu ahaayey Albraslan wuxuuna sameeyey taxanooyin kala duwan. kaas ayaa isagana waxaa la sheegaya imtixaan cusub oo samayn doona. taxan inuu yahay inuu film yahay weli lama shaacin, balse in mashruuc cusub oo gacanta ku dhigay ayaa la sheegayaa. sidoo kale asxaabi waxaa la sheegayaa in ay dood ka keeneen dadka qaar taxanayaasha maafiyada ah iyo rabshadaha, sida in hubka uu ku badan yahay oo kale, taasoo hadda saameyn ku yeelan doonto taxanooyinka kala duwan ee Show TV ka socda iyo kanaalada kale sida midka Jacayl Qoto Dheer ama Tashaak Bodanis, Ashraf Ruyaa iyo Ratley. taxanooyin badan waxay saameyn ku yeelan doontaa in laga yareeyo hubkii waxyaabahaas, maxaa yeelay dadka qaar waxa ay ka dacwoodeen la dhahay in ay rabshaduhu saad ku sii noqonayaan taxanaha, dad qaarna ay dhibaato kala kulmayaanba. ninkii sameeyey Kujir ama Godka ayaa asigana waxa uu sheegay in ay taasi macquulgal ahayn, daawadayaashana ay xukmi karaan taxanaha. waxa dhadhankan u yeelaya inta badan ay yihiin meesha ay daawadaha la saftaan. muhiimdan ay tahay kelimadaani in aysan qofka shakhsiyadiisa bedelaynin, waa uu daawadaa waa uuna ka tagaa, doorka waxaysanayana meeshaas ayuu ku taageeraa oo fikirkiisa ayuu ka baxsadaa. kulli ilaa hadda waa la isku dhagan yahay. waxay u muuqan doontaana in biskooladaha fayoga ay taxanayaasha ku jili doonaan kalkan Turkida. intaasna way ka kaftan. marka saxaaba intaan ay ku egtahay waxay xoogaa idin soo aruuriyay usbuucyadan la soo dhaafay soo baxay. wixii aka taga waa kaasoo, laakiin wixii xooga oo muhiim aan u arkay waa idin soo wada aruuriyay. teeda kale waxaa si gaar ah ragga komitiga uga xusi kartaa macluumaadka inta aan kugu soo aruuriyay midkii ku qanciyay ama midkii aad ka heshayba. intaan kaga kulmaan muuqaalkiisa kalena waxaa idin leeyahay sidaas nabadgelyo.